Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada kanaalkeena haddii ay tahay marka kugu horeysa subscribe saar like na saar sababtoo ah naga ay dhiirgelin noo tahay in badan oo naga mid ah waxaan daawanaa aflaanta qaarkood Christmaska. Haddaba sheekadan maanta ka hadlayno ayaa waxay tahay nin caruurta dili jiray isagoo isla markaas isticmaali jiray maskarada Christmaska. ninkan oo lagu magacaabo John Wayne Gacy ayaa aad u jeclaa in uu daawado aflaanta Christmaska. kadibna ninkii wuxuu daawanayayba aflaanta wuxuu ku fikiray in uu sida aflaanta uu daawanayo oo kale uu sameeyo, yacni wuxuu ku fikiray in maaskara uu samaysto. kadibna ninkii wuxuuba ku fikiray in uu dilo caruurta oo dhan uu iska dhigo Christmaska oo kale, isagoo isla markaasi tusaya caruurta waxyaabo ay jecel yihiin. waxaanu caruurta kusoo kaxaysan jiray waxyaabo ay jecel yihiin. sanadkii 1999 wiilkan yar oo xilli subax ah u socday iskuulka ayuu ka haystay ninkii iska dhigi jiray Christmaska. kadibna hooyadii dhashay wiilka yar ayaa waxay aragtay in waqtigii uu iskuulka ka imaanayay ay dhaaftay. kadibna hooyadii ayaa waxay weyday waqtigii uu ka imaan jiray inankiisu iskuulka. kadibna waxay la xiriirtay iskuulkii waxaana loo sheegay inuuna imaan maanta. kadib hooyadii markay ogaatay waxay la xiriirtay booliska. inankii yaraana waxay raadinayeen boolisku ku dhowaad 5 cisho. waxaa kusoo noqnoqotay booliska arrinta ah in caruur fara badan la waayay. kadibna booliskii waxay bilaabeen inay sameeyaan baaritaan aad u fara badan. kadibna booliskii waxay daba dhigteen gaadhi ay uga shakiyeen in caruurta lagu qaato, waxaanu ahaa gaadhigii ninkii iska dhigayay Christmaska. kadibna booliskii waxay si toosa u aadeen gurigu gaadhigu yaalay, balse waxba kamay soo helin. booliskii waa ay wadeen baaritaankoodii oo kama aysan caajisin. kadibna booliskii waxay wadeen baaritaankoodii waxay heleen farooyin iyo cadaymo kale. kadibna ninkii wuxuu qirtay dembigii uu galay, waxaanu sheegay inuu caruurta ku qarin jiray qol sir ah oo 5 mitir oo laba jibaaran qodan. arrinta kale la yaab kale waxay tahay in ninkan uu dilay 33 caruura, waxaana lagu xukumay ninkii xabsi daayin. haddaba asxaabta muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, sidoo kale kanaalkeena kusoo biir oo subscribe saar. waxaad ka leedahay qisadana nagu soo dhiib commentiga. mahadsanid.